culimada Soomaaliyeed ee nool ka mid ah wuxuu gabar tukataa si guurso marka arkay fiqigu waxa uu ka sheegayo salaad la'aanti dabeetana goboladan oo dhan gabar tuka waay baar dheeraan ka helay buu yiri gabar muslimada tukanaysa inta halkan ka lugeeyay inta wuxuu raadinayaa inaan tukata salaad ilaa markii dambe fiqiga loo fatwooday inaan gabdhaha salaaduba ka saxaynin maadaama qodob fircooniya lagu dhajiyay shay daahirku ahaa in la maydho aan maydhmayn baa jira saadaraadad salaadba kama saxaysay fatwoodeen markii dambe dabeetana intuu in la guursado mooyaane salaadu ma tukan karto oo yani mas'ala fiqiga laga dhigay markii dambe inaanay salaad tukan karin taas waxay abuurtay mujtamac dhan oo dadkii soo korayay salaad halka ka jooga oo qiyaas diinkooda lagu gaarsiisay ilaahay subxaanahu wa tacaala rag culamada soo diray isku dayay inay diinta dib u soo nooleeyaan wax dhigistoodiina lagu badhaaray oo ducaadii fufkan dambe islaamiga samaysay culimada waaweyn ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu barakeeyay waxbarashadoodii wixii ay dhigayeenna wax khayr qabu noqday anuu 1978 ayaan jaamacadda xamar tegey iyadoo waddanka aan magaalada xamar markaan tegey wax tafsiira lama akhriyi jirin culamada inna waa xidhnaaya cabdulwaaxid iyo ragga xidhnaaba marka ahaa intii kalena waa la aamusiiyey waa loo diiday masaajidii masaajid yar oo la yidhahda 4 rukun ayaa nin sheekho muuriidi la odhan jiray ayaa tafsiirku akhriyay meel kale wax lagu akhriyaa may jirin mar dambe sheekh maxamuud masaajidka dhagaxtuurka la odhan jiray oo tafsiirka bilaabay Soomaalidu markii dambe waxay caado ka dhigatay mesela tafsiirka oo kale ramadaantu la akhriyo dastarada tafsiir baro waa inaad bisha ramadaan sugtaa dabeetana bisha ramadaan baa laga yaabaa 2-3 masaajid in wadaadba mar fadhiisto ana astabro argo lix tafsiir bisha ramadaan tabta waa yaada ramadaan tu dhaafto soo heli ma tafsiir kale wagaawanaad bisha tan isku daydaa inaad ka gaarsiiso wixii aad ka gaarsiin karto wadcigiisa saas soo ah الله نحرسته مركي لسود داي الشيخ عبد القادر يو جروب كي لسود داي صدق حتوان بهاي ساجد حمر كوي الله وحافظني مكبكارا ليلة دي ويناتي كوي الله شيخ عكاشي حافظ الدير بيل هيد كوريك سام ساجد دير بكل حيالي ساجد كسوع عكاشي برقدر نوفرشين جامعات كنت أنا صوت شخرابان ويمنشرن dabeetana laba fannu sheekhu noogu akhriyay midba kitaab yar laakiin anaga waxay noo ahaayeen fatxi waqtiga waayo funuunta cid akhrida ma jirin saawgeed waa laga yaabaa kutubta magacooda haddaan idiin sheegay rafudaysataan hadda mid wuxuu ahaa atyab alminax fi cilmi almustalax risaale yar oo cabdilmuxsin cabaad iyo laba nin oo kale wada qoreen oo jaamacadda madiina madrasada raacsiisan ثانوي جامعة الرعاسة بالغوريج من الرسالة صحيح من الرسالة لبعض تسهيل الوصول لهذا عطية ينال كاس الغوريج عطية محمد سالم يلا بصدح مؤلف وكله أي الله قري لو ده الرسالة نوجو آخر يا شيخو ترى جامعة ده وصل شهره أي كوبي طبعا ما لقى فرع مساجدك مكان مساق الله الباب ده واضح لنا ترى الرسالة لو ده الرسالة سيستم شوقه نوجو آخر لكن dadku waaga aqoontu hayrat hamalah risaalo kamid ah labadaasi sanadkii ku xigay 12 jeer baan dhigay hal sano gudaheed ayaan 12 jeer dhigay sidan imanka dhigistu ma yahayn hadda mala haddaan dee laydin xeerayno aan dad badan helin wuxuu dhigay sidee qof u dhig oo laba u dhig oo saddex u dhig oo shan u dhig oo wixii aad heshabaha u dhig baa yahay laakiin sanad gudahii waa 12 goor dhigay aqoontu way yareed laakiin waxay ahayd aqoon la isku dayayo in la gudbiyo oo dadka la gaarsiiyo idinku haysataan fursad dahabiya
marka loo eego ragga hore say wax ku soo barteen ama wax ku hargeysaan maalin niman culamo isugu nimi culamadii Soomaaliyeed marka nin odayo culamada ka mid ah noo sheekeynaya wuxuu yiri anigoo Hargeysa jooga ayaa magaalada Itoobiya fog baa la sheegay buu yiri in irshaadkan u maleynayay inuu sheegay in kitaab lagu akhrinayo waanu lugaynay buu yiri bil baanu sii soconay markaanu tagnay sheekhi xartay meeshu ku akhriyi jiray ayaanu buu yiri kitaabkii maxaa u socotay manaydo kitaabkaas aan raadin shalo dhamaadaan lagu yiri bil bay lugeeyeen markay meesha tageenna waxa lagu yiri shalo dhamaado oo kitaabkii ma jiro wadaygu caynkaas waxa jiray Soomaaliya inaad bil kitaab u lugayso ama aad risaalo yaro hadda fudud oo meel walba taala inaad riyaad saalihiin xadiis ku qoran intuu ku qabto aad sheekh ku sheegaba weydo lagu dhaha oo hebel u baaba yaqaana riyaadka iyo ma ahaan jirin kutub Soomaaliya caan ku ah sheekh la oran jiray sheekh Raan Suulay ayaa uu miki faafiyay ahaa sadaradeed wadanka dhan ma gaarsiisnayn ولذلك حديث رياض الصالحين كم ده مسألة هداد جرام ويدو وحاط كان سعيدات سوى يدي سبعين هالشو إن المدة حديث كان لو ركتابه الغيابة ساعدوا هالشو وفوش هذا فنون تدي هذا صيدا فضوض وبضاته واجا متشرين وده ده اللي حديث كان هو مرسل وحولي مركو فسيري حديث هو مرسل رسول كيف هيرو صادر يقولي مرسل قال كاسو كشوك marka waxaan uga dalleeyay Soomaaliya waqti ay cilmi lahayd waa jirtaa culimo badan joogeen oo dad badan joogeen tusaalaan disinaya laba nin oo culimada Soomaaliyeed ka mid ah ninba kitaab gurigiisa ku arkay ku qoran gacanta marka kitaabku wuxuu ku qoran yahay in dhexe oo murabbac ah ay farta caadi ugu qoran tahay hareerahana حواشي diagonal سي قالوا عضو قرن باكو قرن او خطط كلا نوع كو قري 1974 عشان كل كتاب كان يا قري باهي مي يقول مسي اوغي ما كلا غرانيا ميد بو يشيغاي سي يا لاغو قريي بان كو يري وحو يشيغاي ان علماء عربيد اسكو خدنايeen dabeetana nin caalim oo arbeed inuu yimi oo curyaana awrba lagu qaadi jiray reeruhu la guuri jiray dabeetana isaga lagu qoray buu yiri cilmigu waa akhriya laga qoray sheekh kale oo culimadii xaaxi fadhi jirtay kamida ayaa la kulmay waxaan weydiiyay reer xaaxiyad culimadii deganaa jirtay culimadii kale Soomaaliyeed ee qaadiriyada u badnayd masaa'il fiqhi ay ku muransan baa jiray مسائل كريدة كحاجة كسوق على ما أقول مسائل كشافعية ده ما هي وحياة بليش ما أقول مسائل كي إسكو هي تستان محاكمة ده يجوا حيوان شرين بيقول الجيل شرا صلاة كمان صحده هو أيوه كهدي الجيل يا حبيت جيلبو فرح كله شرايه والنجاسة أنا واحد نقول شرين يقولي ما أقول لحمك إن مشاكل ما هي سكتوا كذا يعني قال شروع مركز قال أجا ماشو صلاة الناس كتوا كذا نورد شرني بيوري أنا وحنا نورد شرني بيوري إن صدق هي طبعا هدا قاعدان جماعة ولا سكتوا كان كلام قالوا يمكن نتولو يمكن يريا صلاة الناس كتوا كذا مسائل فقهية وإيش يا قول دورة مركز الماما هو مسائل كان يدينك حاجة يدينك أي ماده اللي هو ما ها دي شرتاني كسوح يقور رمي إن مع هيدي ماشى كنت على حرت دقنيت أزهر بيكو حدنايين دبتنا علماء أزهر وجاي من شرتي لبص النضاد بوشوجا يا شيخ كتب الحديث تمسنا كو آخرنا إياه كدب بنقنا مركاين كو حدنايين يعني عالم الإسلام علماء وجاي من شرته كتبه آخر شرتي لكن ما حصل لي موي بابين مركي هو استعمال كيبا بابيي مركي كده بيسينه دولته الصوماليات با هي باقي عكت مري markii ka dambeysay diin baa in la dhigtaaba noqotay ayaa dambi noqotay marka duruuf adag buu wadanku soo maray walillahi alhamdu maanta waad aragtaan oo cilmigu u tirabat كتابات ديننا هذا الصدا وهو
كتاب ولدين رصيصا ما قام يساوي أخرداني أنا 1997 بان في الأيام هاي يا شيخ حسن عبد السلام تفسير إيجتك دمر له آخرني مركا كتاب جلالين ويسيه وحقولي جلالين كاسي كتاب تفسير كاهي سوكا ساخر جلالين كواقا وحو ضابع عنها كتاب قنتس كجمو أولين قال لو ضبولو كجري وراقات لا بخبخي كرت أيوها marka kitaabka oo dhan dad magaalada la marto dawladdu waa askartii waxaan ka baqaynaa kitaab laba mari karti kolba labada xaashiyood ee adigaysa la soo baxaysan inta soo duuduubato hoosta gashato habeenkii damaanigo meel la sii socdo xaafad yar oo dumar joogaan isla soo akhri ayuun baad dabayl soo waragtay tan wareegtoona labadiina way kala tagtay labada xaashiyood way kala tagtay يعني تفسير سهل ميسر لا حبنا وحلت جيد دبايل يعني وضعي وضعكو ساسا كتبته يريد وحوالي يرايا لكن قفكو وحا او هلو اسكو داي جيري انو تحصيل كسبايا انت يدون طبعا لكات انت marka u suurta gal oo helo ay isku dayeen xajiyo